dowladnimo waa dastuur shaqdiyo wakala dambayn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula hoy dalka lagu maamula dalka lagu kala hagaa daweeyaan barashadiisu dadkaygo wada akhriya dastuur waa inoo muhiim dadka lagu kala hagaa daweeyaan barashadiisu dadkaygo wada akhriya dastuur waa inoo muhiim bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka oo ah barnaamijkan ugu talagalnay inaanu ku dhiirigelino muwaadiniinta Soomaaliland inay bartaan xaqa dastuurka u damaanad qaaday annaga oo ku weydiinay su'aalo cid garatana siina dastuurka iyo qadar lacag ah oo ay ugu talagashay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka magacaaga saddex Shaafic Ismaaciil oo degan Siinay way su'aasha lagu weydiinayo su'aal la xiriirdo dastuurka diyaar soo mid way waxa weeyaan dastuurka Soomaaliland goorma ayuu dhaqan galay waxaad noo sheegtaa sanadkii iyo bishii Soomaaliland dastuurkeedu wuxuu 94 ayuu dhaqan galay waasi axad qarameedii kuwii ka horeeyay ahaayeen bal uu ka dambeeyay marka la ku noqo labadii kun ayuu dhaqan galay jawaabtaadu dumisay ma jawaabta saxdeed baan kaaga mahad celin kii dambe weyn aad maasan igo wada akhriya dastuur waa inoo muhiim wadaal waxa lagu guda jiraa barnaamijka hibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka marka hore magacaaga saddex magacaygu waxa la isla Ismaaciil oo degan xaafadda Ulaaleel way su'aasha ku weydiinay su'aashii saaxiibka ay ka horeeyay aanu weydiinay aan ku bedelaa way waxaad noo sheegtay wasaaradda kaliya magaceeda lagu sheegay dastuurka waxa weeyaan wasaaradda kaliya magaceeda lagu sheegay dastuurka waxa weeyaan wasaaradda oo wasaaradda joog iyana ka fikiraya waxa weeyaan wasaaradda arrimaha gudaha jawaabtaadu dambeysay igo wada akhriya dastuur waa inoo muhiim wadayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka marka hore magacaaga saddex magacayga saddex waa Cabdiraxmaan Xusmaan Cali oo degan magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Axmed Dhagax way su'aashan ku weydiinayna degmada Axmed Dhagax way balaadhantay xaafadda degan iska daayo waxaan iska degmanaya airline ta deganay way aad u maasantahay su'aashan ku weydiinay waxa su'aal dastuurka la xiriidha waxaad noo sheegtaa dastuurka Soomaaliland xilligii uu dhaqan galay marka waxaan ka doonaynaa bishii xilliga ahayd iyo sanadkii horta sanadkii 2001 baa waa sax soo gartay ma bishii lixaad baan jeclinahay waxa dhiman maalinta iyadana iska deynaa mar hadaad bal horta isku day laakiin soo kulay waa sabti baan ma ya sabti ma bishii lixaad imsay ahayd bishii lixaad imsideed ilaa adu lixda kala ku qoran bay galay 26 ma ahayn marka iyo 20 ma waxay ahayd 14 bishii lixaad 2001 bay ahayd wasaas jawaabtu sax ku tahay barnaamijku waxa fududeysay oo maalgelisay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka waxaanu ka kooban yahay dastuurka qaranka iyo qadar lacag ah oo loogu talagalay qofka Soomaaliyeed inuu ku afro marka waxa la yiraahdaa hibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka guddoon horta wad ku guuleysatay kan baleynaya soo aragtay barnaamijka hadda barnaamijku walahi aad iyo aad ma arkaa dhiirigelin aad iyo aad u wanaagsan igo wada akhriya dastuur waa inoo muhiim wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka marka magacaaga ayaa Ibrahim Maxamed oo degan Sheekh Madar way ayaan waxaan ku weydiinaynaa su'aal dastuurka ku saabsan waxa sheegtaa wasaaradda dastuurka magaceedu ku yaalo dastuurku wasaaradda magaceeda uu sheegay wasaaradda dastuurku magaceeda sheegay ما يدد ميجي ما وساردين وساردين سومال لام بكمتي ها وسارد waxay noqonaysaa wasaaradda
waxay noqonaysaa wasaaradda golaha wakiilada golaha wakiilada noqonaysaa meesha dastuurka wasaaradda xidhiidhka golayaasha arrimaha dastuurka ha isku day wanaagsan laakiin waa jawaabta saxda dad banka igo wada akhriya dastuur waa inoo muhiim way weli daawadeel waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii ibeynta dastuurka iyo hadiyadda dastuurka ibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka waxaanu markaa barnaamijkeena ugu weydiin doonaa su'aalihii loogu talagalay inaynu dadweynaha iyo muwaadiniinta weydiinno markaa su'aasha aanu weydiinaynaa waa su'aal la xidhiidha xuquuqiyaadka asaasiga ah ee muwaadinka ee ah inuu xaq u leeyahay muwaadinku inuu wax doorto lana doorto marka hore magacaaga saddex nimcaan xuseen xarsi oo degan xaafadda goljanna way su'aasha ku weydiin waxweyn qofka murashaxa noqonaya golaha wakiilada da'diisu waa imsa da'dii laga doonay inuu noqdo niyo dastuurkeenna inta badan wuxuu xusayaa inuu qofka 30 jir iyo wixii ka weyn noqdo laakiin da'da saxda ah waa runtaa waa 30 way ka weyn tahay laakiin da'da saxda baan ka doonay aduu da'diisa saddexda aduu inuu noqdo aduu 30 at least ugu hooseeyo iyo wixii ka sarreeya mar kale ku celi aduu waa aduu 25 30 iyo wixii ka sarreeya noqon kara yahay aad laakiin 30 baa goos wad maasanta isku day wanaagsan laakiin waa jawaabta saxda igo wada akhriya dastuur waa inoo muhiim waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka marka hore magacaaga saddex xamse cumar cabdullaahi oo degan qandaar way su'aashaanu ku weydiinaynaa waxa weeyaan su'aalan ugu talagalay inaanu kuu fududayno si aad ugu guulaysato marka waxaad noo sheegi doontaa haddii alla awood leh ogolaado da'da qofka isku soo sharaxaya golaha wakiilada waa 40 jawaabtaadii dambaysa waa joogtii dambaysa isku day wanaagsan laakiin ma jawaabta saxdeed aad baan kaaga mahad celiyo wad maasanta igo wada akhriya dastuur waa inoo muhiim daawada waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii hibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka marka hore magacaaga saddexan maxamed maxamed yariya oo degan magaalada hargeysa qofku hadduu doonayo muwaadinku inuu isku soo sharaxo golaha wakiilada oo doonayo inuu xildhibaan noqdo da'diisu waa inay imsa noqoto 5 hambalyo waad ku guulaysatay waxaanu ku siinaynaa markaa hadiyaddii ay kugu tala gashay wasaaradda arrimaha xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka oo ka kooban dastuurkii iyo qadar lacag ah oo markaa ku guulaystay ka waran bal hadda aad baan dadka soo magaranaysa barnaamijkan isku soo dabariday ee magaranaysa iyo dhalinyarta ka shaqeynaysa aad baan u hambaleelaya dastuurka ma akhriday hadda may laakiin raadiyo hargeysa in badan ka dhageystay waatay aad baad u mahadsantay marka wadiga maanta ka faa'iiday dhegeysiga dhegeysigan maanta ka faa'iiday wadiga hadida ku helay hadida ku dadkana waxa leeyahay dastuurkiina barta igo wada akhriya dastuur waa inoo muhiim daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii hibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka marka hore magacaaga saddex ayaana siciidis oo degan xaafad qandaar way su'aashaan ku weydiinaynaa waxa weeyaan xeerarka dalka marka la sameeyo halkee bay tahay mirjaca loo noqonayo waa halkee xeerarka dalka marka la samaynayo su'aasha ma garan igo wada akhriya dastuur waa inoo muhiim waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii hibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka marka hore waa magacaaga saddex mustafa maxamed liibaan oo degan magaalada hargeysa gaar ahaan degmada lixda takajun gaar ahaan adaacadda waay su'aashaan ku weydiinaa waxa weeyaan su'aashii saaxiibka ay ka horreeyey iminka uu garan waayo marka sharciyada Soomaaliland ama xeerarka la sameeyo mirjaca loo noqdo waalkii marjaca marka meesha lagu sameeyo mise meesha maya marka la sameeyo waa halkee mirjaca loo noqdo ama shuruucda marka la sameeyo laga soo dhiigto ee laga sameeyo halka laga soo dhigto waxa weyn diinta islaamka shariicada diinta islaamka aad iyo aad baad u mahadsan tahay waad ku guulaysatay su'aashii waad ku guulaysatay hambalyan ku leeyahay marka xeerarka Soomaaliland la sameeyo halka loo noqdaa waa shariicada islaamka wax kasta oo ka soo horjeeda shariicada islaamkuna waa waxba kama jiraan sharcina ma noqonayaan hambalyan ku leeyahay halka waxaad ku guulaysatay abaalmarintii ay kugu tala gashay wasaaradda xidhiidhka golayaasha arrimaha dastuurka oo ka kooban dastuurka iyo qadarka lacagta ah oo loogu talagalay ku afurto sidoo aragtay barnaamijkan aad u fiican yahay waxaana wasaaradda oran horta anoo ka dhalinyarada dastuurka waxba lagama yaqaano marka waxaan wasaaraddu shaqada hadar geliso oo ha lagu daro manhajka waxbarashada wadanka si uu dastuurka u barato iminka qof badan kasta doodaya wuxuu ku doodaya in xaq yihiin inuu xaq ma kala garanayo oo madal qodob qoro ka mid qodobada dastuurka ma garanayo ma oranayo qodobkaas cuskanaya waxa ku doodaya marka arrinkan waxaan halka laga wado bil kasta oo rabadaan la wado si kale
dastuurka loo dardargelin karo ummadda loo gaarsan karo loo gaarsiiyo maasantii daawadeel intaas waxaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii labaad ee hibeynta rabadaanta iyo hadiyadda dastuurka oo ah barnaamij aanu dadweynaha Soomaaliland ku dhaqan gaar ahaan muwaadiniinta ku weydiinayna su'aalo la xiriira xuquuqdooda iyo xaqa uu damaanad qaaday dastuurku iyadoo dadkii gartana ay ku guuleysteen abaalmarin ay ugu tala gashay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka barnaamijka waxa fududeysay isla markaasina maalgelisay wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka dowladnimo waa dastuur iyo wakala dambeyn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula hoy dalka lagu maamula waa dastuur shaqiyo wakala dambeyn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula hoy dalka lagu maamula dalka lagu kala hagaa weeyaan barashadiisa